wada ciyaaraha waxaanu soo qaadan doonaa warbixinadii ugu dambeeyay Kamal Daariga ku jiraan aqalka cad Mareykanka oo Ronaldo u doortay inuu yahay goodka Kamal Daariga xilli Messi Mareykanka ka ciyaaro waxaanu eegi doonaa garsooraha Soomaaliyeed oo caawa umada lagu tuuray garsoorka ugu fiican Afrika 2025 alla maxay tahay isbuuc u fiican Soomaaliya waxaanu eegi doonaa sidoo kale akhbaaraadkii ugu dambeeyay Arsenal Yogres oo loo sheegay wax lagu la taliyay waa xantii Brief Portugal uu joogay sidii loo xamanay baahan dara xanta soo laabatay ninku moogtahay dhowr bilo baan daawanayna ciyaaraha Ingiriiska laakiin ninkan xan buu lahaa xantiisiiba had dib u soo baxay yani dicifnimadiisa iyo akhbaaraadkan eegi doonaa asxaabtay subscribe-ka noo saar kuwa channelka cusub ku jiray share TV laagtan iska dirgan saaxibka la ciyaaru jecel bal barnaamijkeenu gaarsiina way salaam saata maqaarkii baan eegi doonaa wax weeyaan habeenka ka weyn ayaanu gashanay xafladii Afrika caawa Soomaali magaceeda ka soo dhex muuqday saacad gudbi watan warkii ku soo sheegnay in caawa garsooraha Soomaaliyeed Umar Artan loo dooran karo garsoorka ugu fiican 2025 Afrika oo dhan iska daa Soomaalidu ma hambalyeynayse xitaa waxa qirsan midda oo aan wax dood ka qabin garsoorayaashii Afrika ee tartamay waxay leeyihiin sanad buu qaatay sida Hakimi oo loo doortay xidig sanadka ugu fiican Afrika sanadka uu qaatay oo kale ayuu Umar Artan qaatay Soomaaliya waxay ka soo dhex muuqatay markii ugu horeeyay inay tartan FIFA ay maamush yani ay tartan FIFA ah oo World Cup inay mataqaana garsooraan ciyaari hadda Morocco ay qaadaysay ee laatan jirada uu ma garsooray sidoo kale waxa lagu aaminay inuu garsooro ciyaartii dhameyd ee finalka Champions League Africa marka 2025 sanad buu isna u ahaa marka toddobaad weyn bay noo tahay xulkeeni Soomaaliya ay 6 sano ka dib badiyay garsoorkeeni Soomaaliya waxa loo doortay garsooraha ugu fiican Afrika oo dhan 2025 hambali baan leenahay runtii marka wax weeyaan